dhammaadka sanad walba bisha December waxay ka mid tahay waqtiyada ugu mashquulka badan ganacsiga dalka Kenya. Islii waxa lagu tilmaamaa suuqa ugu saameynta badan xagga dhaqdhaqaaqa beecsharada. Haddaba qaybtan waxaynu ku eegaynaa farqiga u dhaxeeya isticmaalka adeega gawaarida sida gaarka ah loo kiraysto ee ay dadweynuhu isticmaalaan oo loo yaqaan taksiga, kan boosteejada laga kiraysto iyo kan mobilka laga dalbado oo kala ah Uber, Taxify, Taxinet, Easy Taxi iyo kuwo kale oo fara badan. Dhammaadka sanadka ee bisha December waxay ka mid tahay bilaha ugu mashquulka badan yahay ganacsiga taksiga iyo isticmaalkiisa, waxaana kor u kaca qiimaha lagu kiraysto. Darawaliin badan oo Soomaali ah ayaa ka shaqeysta taksiga, gaar ahaan xaafadda Islii ee ay Soomaalidu degto. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah darawaliinta gawaarida ee takaasida ka shaqeysta. Waxaana weydiiyey saameynta bisha December iyo kala duwanaanshaha isticmaalka takaasida ku shaqeeya internetka iyo kan boosteejada laga qaato ee caadiga loola heshiiyo. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Cali Baashi. waxaan maanta ka hadlayaa saameynta ama dhibaatada ay ku leedahay ama ay ku yeesheen tagaasilayda ku sugan xaafaddan Islii. dhibaatada ay maanta noo leedahay tagaasida waddanka ku soo biiray sida online-ka looga dalbado, annaga saameyn weyn bay nagu leedahay. run ahaantii waxa weeye waxay nagu leedahay shaqo la'aan xad dhaaf ah baan la kulannay. maalintii waxaa suurtagal ah sidaan subaxii halkan u nimaadno in qorraxdu ay noogu dhacdo. marka shaqo la'aan baaxsan iyo jaamkii oo fara batay bay waddankii noogu soo kordhiyeen. marka dawladda iyo shacbiyadda waddankana waxaad moodaa in maaragtay aad ay oga gaabisay inay la hadlaan. marka waxaan leenahay insha Allah inaan marka aan sameeyno xiriir annaga iyo dawladda tagaasilayda Islii ku sugan iyo dawladda inaan la xiriirno si ay maaragtay noogala hadlaan ama loo dajiyo way kale ay ku shaqeeyaan baan jeclaan lahayn insha Allah taala. annagana kulay hadeer waa un iska dulqaadii waxaan ku joognaa iyo dhalinyaro haddaan nahay dalka ku sugan xaafadda Islii, wax kale oo aan ka shaqeyno kale ma laha. marka waxa weeye inaan joogno oo aan iska sabarno intii way ay nooga keenayso dawladda. marka insha Allah warkayga intaas ku soo kaabanaya. waxaan ka hadlayaa saameynta weyn ee nagu yeelatay gawaarida application-ka ah oo suuqas ku soo galay waddanka Kenya. annaga maadaama aan taksiilaynahay dhibaato aad weyn ugu haysaa. awalka u horeysay si aan u shaqeysan jirnay shaqadeena noo kala socotay, laakiin ayaamaha say u soo biireen ay nagu soo biireen shaqadeena way naga yaraatay oo naqabatay weyn ana saaran. dawladda Kenya waxaan ka codsan lahayn in naga yara qaado culeyskana saaran oo tagaasilaydaasi naga joojiyo si aan shaqooyin u helno oo irshaqeena aan u dhacsano oo naga qaban kari waayeen. xasiiday inaad adigu ku biirto taksiyada application-nada oo online-ka ku jiro ee halka laga dalbado. wax dhibaato oo diidi kara ma jirto, laakiin anagu waxaan jeclaan inaan goonida u shaqeysano maadaama ayagu ay jecel yihiin 30% in laga qaado wax lacag ah. 30% aad ugu adagtahay the whole day waa inaan orodnaa si aan qudiyoonkeenna u helno. laakiin tan anagu yara fiicnaato oo nagu jaban inaan waxayna qudiyoonkeenna raasano shaqooyinkeena aad nagu yara fiican maadaama laakiin shaqooyinkeena lagu dawiyimi waxay noqon kartaa in lagu biiro. maya waxaa jira dhalinyarada inaa Soomaalida qaarkood waxaa jira tagaasilayda ah qaar oo aanan haysanin sharciga ID-ga ah oo haysta alien card. dadkaasi waxay u keentay dhibaato aad u fara badan. waxaa sababtoo waxaa la rabaa good conduct la rabaa 5 sano oo BSB oo driver license la rabaa. waa sharuudihii in lagu biiro application-ka Kenya ay ahaayeen. dadka qaarkood ma awoodaan gawaarida qaarkood. aniga kaliya inaan isku hadla ma ahan, laakiin dadka dhan wada hadla waay. dadkaas qaarkood waa nagu wada jiraan wixii alien wata. dadka alien watana aad way ugu adagtahay inay ku biiraan. dhanka kale marka laga soo tago darawaliinta wada gawaarida taksiga waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo milkiilayaal ah
kuwaas oo gawaari ka kireeya darawaliinta Soomaalida iyo muwaadiniinta kale kadibna isbuucii ama bishii ka qaata khidmad. walow qaarkood aanan farqi badan u dhaxaynin kirada, haddana waxaad moodaa in darawaliintu ay sameeyaan faa'iido badan taas oo ka badan bilaha kale marka loo eego bisha December. Taksiilayaasha inta badan waxa ay tilmaameen in xaafadda ama suuqa Islii yahay meesha ugu badan ee ay ka helaan dalabka dadka isticmaala ama qaata taksiga. Waxayna ii sheegeen in marka ay soo faarujiyaan safar ama ay soo dejiyaan dadkii ay wadeen in ay durbadiiba dib ugu soo laabtaan xaafadda Islii si ay u helaan rakaab kale iyo dalab kale, taa oo micnaheedu yahay in ay Islii ka mashquul badan tahay xaafadaha kale, waxaana ku badan dadka isticmaala gaadiidka sida gaarka ah loo kireysto ee taksiga. waana halka ugu badan ee taksiilayaasha ay ka sameeyaan dhaqaalaha ugu badan magaalada Nairobi. halkan aan taaganahay waa goobta ugu mashquulka badan ee suuqa Islii, waxaana u badan takaasida caadiga loo isticmaalo ee la kireysto, dadkuna ay aad ka u isticmaalaan. haddii aad daqiiqado taagnaato waxaad arkaysaa dhowr qof oo taksi caadi ah qaadanaysa, inkastoo ay Islii ka howlgalaan taksiyada application-ka ah ee online-ka laga dalbado. labada nuuc ee taksigu u shaqeeyo ee ah taksiga laga dalbado khadka ama mobilka iyo kan sida caadiga ah loola heshiiyo ee boosteejada laga qaato ayaa ku kala duwan dhaqaale sameynta iyo qiimaha kirada. waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha waxaana ay ii sharaxayaan kala duwanaanshaha. taksiga jeceshahay oo isticmaasha taksiga caadiga mise taksiga application-ka? Ani badanaa waxaa isticmaalaa taksiga application-ka. Customka macnaha wax u fududeyn kara inay gurigooda dhaqso tagaan waa Taxify ama Uber-ka. maxaa kale ku dooratay? Waxaa ku dooraa adoo jifta macnaha isticmaali kartaa gurigaaga kugu imaanaya, laakiin takaasilada kale ayagu dhaweyn xitaa hadii noo socona jaamka samarona san waa jaama galnay kuwa caadiga ah kan laakiin agashida ma qaan wuxuu taagaya dhirtu ku taagayaabo. maxaa marka kamid ah qasaarihiisa horta Taxify ama kuwan application-ka qasaaraha Soomaalihan maxaa yeelay lacagtooda cheap waaye. meesha kuwan kale suusi ku geeynaa ku shidan asuu wuxuu ku geeynaa 300 shilin ama 400 shilin. waxaa dad badan oo isticmaala taksiga ay aaminsan yihiin in taksiga laga dalbado khadka ama mobilka uu ka qiimo jaban yahay kan kale, sidoo kale uu ka wanaagsan yahay xagga amniga, waayo waxaad helaysaa macluumaad tagsigii ku qaaday ee aad ka dalbatay khadka sida darawalka magaciisa, mobilkiisa, gaariga nuuciisa, taargadiisa, meesha uu ka qaaday, meesha uu ku geeyay, waqtiga uu ku qaaday iyo sidoo kale lacagta uu ka qaaday. dhammaan macluumaadkaas markii uu ku geeyay kadib ay kugu soo dhacayaan mobilka, taas oo fududeynaysa in haddii aad lacala wax ku dhex ilowdo aad dib u raadiso tagsigii ku qaaday, sidoo kalena ay fududeynayso macluumaadkaas sugidda ammaanka qofka la qaaday. waxaa la yidhahaa Maxamed Cabdi Asable, waxaan ka shaqeeyaa area-dan Islii. wallaahi aniga taksiga application-kan waan ku shaqaystaa, kan oo caadiga oo stage-kana waan ku shaqaystaa, meelahan istaaga. marka way kan application-ka see ugu shaqaysaa? kan application-ka caadiga adiga markaad diyaar u noqoto inaad shaqaysid maad online aad galaysaa, waa adiga waa sida Facebook dad online gashid qof un baa kula soo hadlaya Soomaa. kan waa sida online aad gashid waxaad helaysaa ride ama waxaad helaysaa shaqaad helaysaa. wallaahi wuxuu ku fiican yahay isaga, wuxuu ku tusaa qofka meesha uu taagan yahay. marka haddii adiga aad yani si fiican u taqaanid waxyaabahan teknolojiyada, qofka meesha uu taagan yahay, wadada taagan yahay, building taagan yahay, ku sheega adiga marka mapka isticmaalaysa oo tagaysa. haddii aad adna waxaad garanaynin oo wacaysa qofka inta taagan tahay meel hebel aan taagan oo kule saasaad ugu tagaysa. okay marka qofka magaciisa waa arkaysaa? qofka magaciisa aad arkaysaa, numberkiisana waad arkaysaa, saas ku wacaysa. okay waa tahay meeqa camal ku dhex jirtaa marka? wallaahi aniga hadda kuma badni, muddo 6 bilood 7 bilood camal aan ku jiraa. weekend-iska bisaan ku shaqeeyaa maadaama Nairobi iska jaam badan tahay, reedkiisana aad u iska raqiis yahay. marka weekend-ada indiyada bisaan marmarka qaar kala. warbixintan aan ku eegaynay farqiga u dhaxeeya takaasilada caadiga ah iyo kuwa online-ka laga dalbado ee application-ka ah ayaa dad badan oo isticmaala takaasida waxa ay inoo sheegeen in takaasilada caadiga ah suuqa lagala wareegay oo isticmaalku uu ku badan yahay kuwa application-ka ah. سميرة عبد الله جامع وركا RTN نيروبي.